waxa laga yaabaa inaan u fiirsatay laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago arrimo ay isaga mid yihiin madaxweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiinta ama dadka Soomaalidaba dhaqamo ay isleedahay Donald Trump waa nin Soomaaliya marka fiirisid ta koowaad Donald Trump wuxuu sheegaa in uu rabo America in mar labaad uu ka dhigo great ama wadan weyn ama sharafta America inuu soo celiyo laakiin marka dhaqamadiisa fiirisid Trump wuxuu jecel yahay dhaqanka cadaanka inuu soo celiyo oo Trump America waxa kala weyn dadka cadaa kala weyn America markii la dhaho ma aha hal color waa ummado isku tago fara badan laakiin asaga wuxuu ka doorbiday cadaanka siyaasiga Soomaaliga marka uu hadlaayo waa muwaadin waa wadani waa saas laakiin markii tuulo loo dhiibo qofka Soomaaliga waxa dareemay markii meel yar loo dhiibo marka ugu horeyso wuxuu sameeyaa waxa waa in dadkii localka ah dadkii qabiil ahaan ku dhawaay inuu soo dhaweyso dadka kale fogeeyo meelis qofkaas muwaadin Soomaali ma aha uu fogeynayo wuxuu muwaadin Soomaali u arkaa ninka qabiilkiisa oo badana annaga wadanka waxa nagala weyn qabiilka talabaad madaxweyne Trump balamadiisa way badan yihiin balanqaadkiisa aad u badan yahay wax badan oo ballan qaadaa laakiin ma dhameystiro oo markii loo dhiibay maalinta koowaad wuxuu ballan qaaday inuu dhameystiri doono dagaalka Ukraine mayna dhicin Gaza wuxuu sheegay inuu rari doono oo geey doono dhul kale mayna dhicin Canada Mexico China inuu canshuuro ku soo marka waxa u malaysaa meel kasto bilaabo inuu qabiye kaga tago Soomaaliya waa sidoo kale nin walbo waxa waaye ninkii ku horreeyay wuxuu sameeyay baabi'ina wax cusub oo bilaaba asagoo dhameystirin mid kale imaanaya meesha hadana ka tirtira ka soo bilaaba marka waa dhaqana isaga simanahay in hawsha socotay in la baabi'iyo hawl kale la bilaabo hadana tii la wadi waayo saddexaad Donald Trump badana wuxuu ku faanaa ka sheekaya taariikhda tagay waxa jira wareysiyo iyo hadallo oo soo saaray marka qaarkood oo madax hore Mareykanka badana waxyaabaha uu adeegsado waa wax uu dadku duraayo hadalkiisa badana waa hadal xanaf leh waay siyaasiyiintu uu jecel yahay waa siyaasiyiin badana hadallo xun ku hadli jiray Soomaaliduna waa sidoo kale taariikhda Soomaalida ka sheekayaan waa taariikh hore qabiilkeena xukumi jiray qabiilkeena 100 professor leh qabiilkeena 100 imaam masaajid leh qabiilkeena laakiin anaga dhanba maanta kama hadana Trumpna wixiisa waa history waay wax today kama hadlo tan afraad Trump dadka adduunyada ugu jecel yahay marka fiirisid waa ragnimo nin qatar waay ninkaas san waay madaxda adduunyada ugu jecel yahay waa Erdogan North Korea Putin Paul Kagame marka kulligood waa dad adag marka waxa u malaysaa dagaal inuu kula jiro uuna jecel yahay qofka xogaa adag oo wax baabi'inayo wax dilayo inuu qaabkaas ka helo madaxweynaha Ukraine wuxuu ku nacay jiljilaca soo sheegay madax fara badanna ma jeclaba totally Afrikaanka madaxdooda ninka kaliya oo ka helo waa Paul Kagame Erdogan waxa waaye wuxuu dhaw ma ka soo horjeesto marka Soomaaliduna waa sidoo kale Soomaalida waxa laga yaabaa qaab annaga saas ay nin rag waaye dhaqankeena dhan asaas oo gabadha xaqeeda in la inkiro qofkii ma taqaana daacadda ahay in laga dhigo qof maskiin oo daciif ah qofku wax dilaayo qofku wax qaxinayo qofku wax caynayo TikTok waxa ugu follow badan dadka caayo waxa ugu follow yar dadka wanaagga ka sheekeeya waa wax mucjiso ah dadka caayo waxa laga yaabaa milyan inay dhaafeen suuxdii uu soo kaca maalinba meesha uu tuuraa waana si badan followgiisa takhtarka soo galo macalinka soo galo sheekha soo galo followgooda hoos u sii waa laga sii tagoyaa marka waa iska leenahay Trump anaga waxyaabaha oo crazy ga jecelnahay tan shanaad oo ugu dambayso fanka isla weynida yasida dadka waxa u malaysaa dadka qaar markuu salaamayo xataa waa ka dareemay isla weynida iyo qaab darrada ku jirto Soomaalidana saas waxa waaye 4.5 iyo waxaan loo jeegin ummadan waxa la dhahay idinka haafatiin markay dagaalkii dad badan ma dilin dadna waxa la dhahay idinka fuulaatiin dad badan Allah iseen marka waa meel baarlamaanka lagu qaybsanayo ma qof soo disheen dagaalada gasheen maxaa dhibkaysateen Trumpna waa sidoo kale qaabka iyo waxyaabaha uu jecel yahay waxa waaye wani foodaas ka helo waaye nin la dhihi karo hadda wanaag iyo horumar adduunka wada ma